موسى ديك بالك ماشي موسى اللي من ذن اسكدي قدي قدت كان كم علين كده انا كو سوق انا ماشي تكمل حد ما تعرف صدق الشرب مي بافكم الى يقدم جدا بافكم فرنا مش لك طبعا سوما بلا كرتا قبكره يقول انت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أيها الإخوة كل شيء محاضرة دلنيرada iska leeyahay laakiin muxaadarada hadii dhalinyaro leedahay waalidkana waa ku jira dhalinyaraduna waa ku jiraan aabayaal iyo hooyayaal iyo dhalinyarada laftooda mas'uuliyadooda iyo intii waalid noqon doonto dhammaan wayna wada khusaysaa insha Allah ta'ala insha Allah waxaan ku soo qaadan doonaa mawduuc muhiima waalidka iyo dhalinyarada iyo culimada iyo inta mas'uuliyiinta muhiim u ah ilaahay nagu anfaco waxa weeyaan dhul qurba ayaan joognaa laba qurba isku kaana darsan beledkeeni anagoo qariibka oo naan joogin iyo beled aan ugu diin ahayn oo diin kala haysta anagoo joogna dadkan hadda wadamadaana keenay dadku waxay u maleeyaan dhulkan in lagu yimid tahriib iyo maanta ma arkaysaa xagga iyo xirfad in lagu yimid xirfad laguma imaanin dadkani ayagaa ugu talagalay dhulkan in la soo galo aydil caamila ay keensadaan sababtoo waxbay laba shay baa ku qasbaya dad kale inay keensadaan waa midoo dee dhaqaalahoodii iyo warshadahoodii iyo waxoodii horey u mareen marka waxay u baahan yihiin shaqooyinkaas wax u qabta waa u baahan yihiin waxay kaloo ku qasbay dadkan waagii hore dee ilmo badan bay dhali jireen laakiin markii dambe mutcadan iyo shahawaadkan markii ay ku badatay iyo tumashada waxay noqotay ilmihii la iska xiro ilmihii la naco saa darteed cadadkoodu wuu yaraanayaa waxay u baahdeen dad dhulka u camira marka una shaqeeya dadka u shaqeynaya oo u imaanaya dhulka u camira qorshe ayaga ugu talagaleen
iyo nidaamay ugu talagaleen ayay marka u wataan oy ku imaanayaan. wax ciyaara ma ahan. nimankan qarbiga la yiraahdo niman aragti dheer oo qorshe dheer waaye, qorshe dheeray degayaan. sida ay yiraahdaan qorshahaas dheeray degaan waxay yiraahdaan badii'un wa muxkam, waa tartiib slowly u socdaa, laakiin waa wax la hubo in hadhow maanta ma arkaysaa mirihii laga rabay oo dhali doono. waana dad adkaysimo iyo sabar u leh waxa ay rabaan inay maanta ma arkaysaa gaaraan. aqoonay u leeyihiin, sabaray u leeyihiin, khidaday u leeyihiin, xoolo iyo akaademi iyo wax daraaseeye iyo waxa ay ku gaaraan waxay rabaan oo adduunyadana way u leeyihiin. kolley ayaga ulajeedadooda waxaa weeye dadkan imaan doona dee haddii ay gaalo ay yihiin oo waddamo gaala ay ka yimaadeen dhib kuma hayso, dee gaaladaas unbay dhinac ka raacayaan. hadday laakiin muslimiin ay yihiin xisaab iyo qorshay u degayaan. qorshahaasay u degayaan waxa weeyaan dadkan hadda imaanaya intii duqow ah inaysan bedeli karin waa og yihiin. laakiin de ninkii duqadadoo wataa, dhalinyaroo wataa, kuwa u dhalay, kuwa uu yahay, waxbuu soo xaabinaya, dad buu u keenaya. dhalinyarada calaqali waxbay kala harayaan, thaqaafadooda waxbay ku beerayaan, haddaysan xataa caqiidada islaamka ka bedelin, laakiin andimadooda inay jeclaadaan, falsafadooda iyo ideolojiyaadkooda inay maaragtay ay jeclaadaan, waxyaalay ku beerayaan. jiilkaas hore waa nus waa og yihiin ayakaba. jiilka labaad oo ku dhalan doona ayagana waxay isku dayaan in badan inay maanta ma arkaysa ay kala haraan, thaqaafadooday ku mashquulinayaan, camalka rootiiniga iyo waxyaalahaasi ku mashquulinayaan. ayagana waxaa dhici karta say u qorshaysteen thuluthaan oo kale inay ka helaan, 3 markii loo dhigo 2 oo kale inay ka helaan. jiilka saddexaad waxay ku dadaalayaan inuu iyaga khaalis u noqdo, ideolojiyaadkooda iyo dhaqankooda iyo way of life iyo systemkooda inay marka ay qaataan, saasay ku dadaalayaan. mithaal dhacaan inkaga sheegayaa, kolley marar badanna waa sheegay. nin soomaaliyahoo ingiriiska jooga mandaqadaas magister iyo agaheeda ayaa markii xoogaa oo maaragtay sharcigii wax ku sheeg ku meel gaarka ay siiyeen oo shaqo raadinayo, nin xaafiis joogo u soo galay. ninkii wuxuu ku arkay korkiisa uu ku musawiran yahay nin wadaadaho cimaamad ay u duubantoo ku xirantahay. wuxuu yiri ninkan wadaadkan soo musawirtay waa nin muslim iska salaan, assalaamu calaykum. wuxuu yiri maxay salaamaysaa, aniga muslim yihi. wuxuu yiri maxay yahay musawirkan meesha kugu dhegan. wuxuu yiri waa awowgay isagoo muslim yimid, diintiisa isagoo haysto ku dhintay. aabbee meeshaan oo ku dhintay galab oo ahaa buu dhahay. marna waxa waaye khamradiisii boobkiisa u aadayay, marna masaajidkiisa u aaday, galab uu ahaa. aniga miya khaalis ciddaanan ka mid noqdo dhahay. adinkana ilmihiina jiilkiina saddexaad waa sidaana u dambay doontay, ogaaduu dhahay. go-aan markaas waxaan ku gaaro yiri inaana ilmahayga aana keenin. haddausa keenina kollay ilmihii meeshii aabba aaday waxbaa jiray aad ay leeyihiinoo dadkan hadda un maanta ma arkaysaa daadka soo qaadayo, amba waa soo raacayaan amba waa ka nabadgelayaan. allah na xafido. annaguna hadafaan leenahay. hadafka aan leenahay meeshan waxaan leenahay dagaal baan ka soo cararnay,
dhaqaale xumaan ka soo carray nabadgelyo la'aan bal xoogaa masaajida haysto diintiina sii haysto kan laba khad oo mutacaakisa marka iska hor imaanayso annaga iraadadeennii aan doonayno inay diinteennu ay baaqi ay noo noqoto iyo dadkan iraadadoodii oo rabaan mabaadi'doodii ideolojiyaadkooda inay nagu beeraan ee qofka muslimka wuxuu og yahay inuusan diintu asagoo kaalaynin weladka welad gabar ka gabar ab ka ab inuu ilmaha dhaxal siiyo sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wawasaa biha ibraahiimu baniihi ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي إبراهيم دين الإسلام كو دردار يا نبي الميس هاي إذ قال لبنيه حرورتي سوحوا كيري ما تعبدون من بعد ما حد عابد إنسان وهو صنيا بل دين إليها صنيا إليه كدقاقيا قالوا وحيد نعبد إلهك وإله آباء إبراهيم وإله آبائك إبراهيم إله هذا يا إلهي آبيالك قال عابدنا إلها واحدا ونحن له مسلمون إله صلوا إسلامنا أنا قصاصا ربنا الله نوه القليل لكن إله ما يقال سبحانه وتعالى مدي قوس الراعي دونت شك ملئ dee ayagu dhulkoodii bay joogaan waa kaa khidab badan yihiin waa kaa imkaaniyaad badan yihiin annagana diin xaqaan haysanaa haddii aanaan dadaalno ilaahayna aan tala saaranno asii diinteennana aan ku dhegno iyagana aan diinta ugu yeerno oo sabar iyo wanaag iyo xigmad aan ku dhaqanno waa dhici kartaa inaan annagana ilmaheena diinta ku baaqi yeelno ayagana aahaar aan uga tagno sideedaba qofka diinta waxay ku baaqi noqon kartaa dacwo adigu haddii wixii aad taqaanid iyo mabda'aaga la aamustid waa lagaa seed calaynaa mithaalaan idin siinaa nin wadaadoo qur-aanka iyo diinta yaqaanaa qaryo yimid dadkaas waa caam waxba ma yaqaanin hadduu iska fariisto uusan salaad dadkii farin uuna masaajid u dhisin uuna ilmihii dugsi u qabin waxba barin ee isagii dadkaanaa ta'hiirinayo ilmihiisana ilmahaas kale dhinac ka raaceen isagoo xataa marka diintiisa waa ka dhumeen laakiin dadka hadduu intuu isii rakaaliya wax barto war tukada ilaahay barta war ilmihiin la kaali aan wax idin bara uu yiraahdo mujtamaciina waa badbaadaya asagiina waa badbaadaya ilmihiisii asagii soomaalidu waxay yidhaahdaan tala adaa ku noole kuma noolid kuguma noola tala adigaa ku nool ee ayadu kuguma noola macnaha waa maxay diintan islaamka iyo dacwada annagaa u baahna iyada nooma baahno annaga haddii aan nacno ilaahay wuxuu yihi sabdil qowman hayrakum dad kale oodan ogeyna ilaahay uu diintan maaragtay u xil saaraya oo kor u qaadaya haddii marka annaga aan diintan aan u qulno oo dadkan aan dacwada gaarsiino waxaa dhici karta annagana inaan badbaadno ilmahanana ay badbaadaan laakiin annagu haddii aan isdayacno ummaddiina aanaan dacwo aanaan u gudbinin ayada markaas waxay noqonaysaa iyadoo lagaa imkaaniyaad badan yahay lagaa sabar badan yahay lagaa aqoon badan yahay lagaa khidad badan yahay haddana haddii aad isdhigato ooda dagaal bixin allana aadan kaalmaysanin markaas in lagaa kaalmaynayo lagaa adkaanayo shaki kuma jiro saa darteed waxaa loo baahan yahay mas-uuliye inaan isa saarno annaga nafteenna iyo owlaadeenna dhulkan aan joogno ee wax walboo muqriyaad oo dadka qatale ay joogaan shahawaad iyo maanta ma arkaysaa mukhadaraad ilmihii lagu baabi'inayo ilmihii inta gaangis ay noqdaan mukhadaraad iyagii isdilayaan oo xabisyaalka laga buuxinayo
qaarna inta dad double agency loo soo diro oo jawaasiisa ay daacish iyo meel daran ka tuurayaan markaasi dadkii waxaa loo qaybinayaa daroogo iyo mukhadaraad ilmihii u ka kala qaybsamayaan haddii marka aanaan baraarugsanaanin cunug daacish laga tuuro oo halkaas ku soo dhinta iyo cunug mukhadaraad iyo balaayo inta laga buuxiyo iyo gaankiis ayaguna isdilo ayay noqonayaan marka inaan maanta ma arkaysaa mas-uuliyo isa saarno waayo ilaahayna wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara dad yahu naftiina iyo ahalkiinaba naarka ilaaliyo dee qofku naftiisa mas-uulow ka yahay ilmihiisana mas-uulow ka yahay qofku haddii uu dhalinyaro yahana mas-uulow ka yahay reerkiisa ma ahan qofka haddii uu dhalinyaro yahay waa teen age inta la yiraahdo inuu mas-uuliyadda iska qaado dad badanoo waxaa dhici jirtay dhallinyaraa ilaah intuu hanuuniyo aabbahood iyo hooyada weligood diin arag oo salaada iyo soonka iyo akhlaaqda iyo walaalihiis oo baro marka qof walba usrada ka mid ah haddii uu yar yahay iyo weyn yahay mumayis uu yahay mas-uuliya usrada ka saaran iyo mujtamaca si uu hanuuni lahaa ilaahay nabigiisa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waamur ahlaka bisalaati wazakaati wastabir calayha ahalkaaga salaada iyo zakada sabar ku sabar maxaa loo leeyahay dadka kale wax waa u sheegi karaa laakiin qof ay diintu run ka tahay ilmihiisa wax ku sheegi kara reer baadiyaha waxaa dhici jirtay nin wadaada ayaa xoolo u leeyahay meelahaasoo dadka kale marka wax tahliilis la yalaa jiro ariga tabiyaha qur-aan lagu tufo arayaal kaleeto lagu tahliilinayo oo macnaha loogu ducaynayo dadkaas oo ariga wax u tahliilinayo oo ugu ducaynayo waxbay siinayaan kiisa marka xoog uma helo marka waxay dhaheen wadaadku ariga kale ayuu tahliiliyaa kiisa waa ka tahliilla'ayahay macnaha qofku wuxuu xoog badan yahay dadkaas kaleeto inuu wax u sheego laakiin ilmihiisa iyo dadkiisa nashaad badan uma leh waxaa nashaad u yeelan kara qof diinta ay daacad ka tahay khaas maalan haddaad arag dadka diinta ku qaraabta oysan diintu dan ka ahayn oo iyaga diinta aan ku camal falin laakiin ku qaraabta ilmahooda waa min afsad innaasi maxay u yeelayaan asagaba diintan daacad kama ahan wuxuu rabaa dadka inuuga qaraabto cunugiisa marka cuntuu ka dharjinaa mana edbinaayo soo maaha laakiin qofku marka diinta ay dhab ay ka tahay haddii uu ku guulaysto dee ilaaha hidaayadahay qofku hidaayada ma heli karo iyo hadduusa ku guulaysanba dadkiisa diinta waxba maanta ma arkaysaa u sheegayaan nabigeennana wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam alaa wakullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyati qof walbaba waxbaa loo diray raciyadiisana waa la weydiinayaa imaamka weyn dee dadka uu mas-uul ka yaho raaci uu ka yahay waana la weydiinayaa aabbahana gurigiisaa la weydiinayaa hooyadana dee waa gacan yarihiisii ilmahaas tarbiyadooda aabbaha ka dambeyntooda inay ku tarbiyayso dhaqaalahooda ilmaha ka warqabtooda waxyaalahaas ayay iyadana maanta ma arkaysaa mas-uul ay ka tahay ilmaha markii ay soo koraan ay madaxa la soo kacaanna ilmaha kaloo walaalahooda mas-uulaa ka saarano soomaalidii waxay yidhaahdaan ratiga yar ratiga weyn sanqaadkiisuu leeyahay ratiga weynuu ku dayanayaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo usro ou khayr la damco ilmaha curadka ah inanka ugu weyn gabadha ugu weyn unbaa ilaahay tawfiiq iyo adab iyo nusxi ay maanta ma arkaysa ay waa u faafajiyaan kuwa kalena way daba kacaan laakiin haddii kii weynaa ama gabadhii weyneed ay dhaqankooda ama caqiidadooda ama diintooda inxiraafaan hadduusan ilaahay ilmihii kale aysan caybin halisay ku jiraan marka ilmaha waaweyni oo ilmaha ugu weyn mas-uuliyada ay qaadayaan
kama yara midda aabbaha iyo hooyuu ay qaadayaan sababtoo ah ilmaha dhan ayaga markaas ayuu ku dayanayaan nabigeennana calayhi salaatu wasalaam ma aha dadka waaweyn keliya inuu mas-uuliyo saaray ama ay diinta faafiyaan dhalinyarada laftooda nabigu xil buu saaray bal qisadan dhegaysta nin la yidhaahdo saxaabiyahu maalik bin xuwayrat la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi atayna nabiya sala allahu calayh wasalam wanaxnu shabiiba annagoo dhalinyaro ahoo mutaqaaribuuna dhalinyaro isu dhadhow iyagoo ahoo 20 jiryaal dhowr iyo 10 jiryaal ah ayaa nabigu umid u dhah diinay soo doonteen faaqamnaa cindahu 20 leylata 20 habeena nabiga la joogno diinta ka baranayno dhaqankiisa akhlaaqdiisa u tukanayo saxaabada intaas waxbay maanta ilaa saxaabada waxaa dhici karta annaga 3 sano haddaan xeraysano qofka saxaabiga hal maal intuu ku fahma ma ku fahmi karo maskaxdooda waxay ahayd fidradooda fiicneed intaas 20kaas beri cilmi iyo akhlaaq iyo dawq iyo wax cajiib leh ku qaadayaan 20 sano markaan joognay fadanna an nashtahayna ahlana wuxuu naga dareemo dhaha nabigu inaan dadkeena u hilownay oo xoogaa qurbo iyo maarta xoogaa xidlo aan dareenay fasaalanaa camman taraknaa fii ahlina bal dadkii aan ka soo tagnay qof walba maxaa walaaloo kula dhashay aabbaayahoodee ma nool yihiin waxaa soo wadiiyaan yacni taasna waa ta'niis qofka inuu weheliyo oo macnaha inuu maaragtay oo caatifo iyo maaragtay naxariis oo siiyo weeye wa kaana rafiiqan raxiiman rasuulku mid turid badan oo raxin badan uu ahaa markaan u warannay faqaala wuxuu dhahay irjicuu ilaa ahlikum ahalkiina u laabta dadkiina haddii aabbo iyo hooyo iyo odayaal iyo ugaasyaal ka mid a qabiil dhanay ka yimaadeen ma isaga laabta maya facallimuuhu dadka bara diinta wixii aad iga barateen oo saxaabada ka barateen qur-aan iyo xadiid iyo aadaab iyo akhlaaq dadkii u geeyo gudbiyou dhahay wamuruuhum wixii khayra fara shartana ka reeba wasalluu kamaa ra'aytumuuni usalli sidaad u tukanayo u tukada salaadaas aad aragteen aan tukanayo waa anagii maanta ka hadlaynay salaadu inay daahir ay leedahay oo ah weysadeeda iyo maaragtay rukuucda iyo sujuudda iyo tuma'niinada in la kamilo iyo baadinkeeda oo ah khushuuceeda intaba maanta ma arkaysa tukadou dhahay fa idaa xadarat asalaatu falyu'adin axadukum salaada haddii ay xaadirtana qofkiina ha adimo walya ummakum akbarukum ninkiina inku weyn imaamha uu noqdo maxalu shaahidka waa maxay nimankaan dhiban dhallinyarahay ahaayeen nabigay diinta ay ka barteen ma dhihin mas-uuliya idinkama saarnay aabbayaala mas-uul saarayeen may adinkaa la rabaa aabbayaalkiin iyo hooyooyinkiin iyo adeeryaalkiin awowayaalkiin ummaddii aad ka timaadeen diintan gaarsiiya waxaa dhacaysay 70aadkii markii dhallinyarada ay aad ilaahay diinta xamaasada uu siiyey qof yaroo ardaya mase secondary dhiganayo mase dhiganayo maaragtay intermedi dhiganayo inuu magaalo dhan iyo dadkiisaba uu bedelo dacwada uu ku faafin aqoon badanna ma jirin laakiin waxaa jirtay niyo iyo raqbo qofka uu jecel yahay diintan inuu ku camal falo dadkana maanta uu gaarsiiyo ay ku soo amoobaan waa markaas marka dadka iyo xijaabka ay qaadanayaan ikhtilaadka iyo gabdhihii lala faraka ciyaaraya la iska dhaafay dhallinyaradii waagaas haddaad arki lahaydeen lixdamaadkii dadka ama ardada ama dowladda u shaqeeya ama waxaan zino iyo faaxisha lagama sheekaysan jirin markii diintii la fahmay waa laga goy gabdhihii waa xijaabteen wiilashii waa xijaabteen waxay qof walba dariiquu ku toosay nin walba gurigiisa uu diintii ula noqday xijaabkan aad aragteenoo meel walba ku faafsan iyo dacwadan cayaar kuma aysan imaan dad moral haayo ayay ku timid dadkaasina aqoon badan ma lahayn laakiin niyo fiican bay haayeen saa darteed shabaabka odayaalku way ku xoog badan yihiin soo maaha waxaa dhacaysay xataa
niman badan oo culamo ashar ka soo baxo cilmiga la fadhiya laakiin dacwo iyo nashaad aan haynin markay dhalinyaradii arkeen inuu cilmigoodii ay nashriyeen oo dadkii ay aad iyo aad u fahamsiiyeen bal rag ashar ka soo baxay asharta iyo masaarida qofka asagoo caalimu sigaarka caba oo sigaarka cabi jiray markii dhalinyaradii ay ta'athireen wixii dhammaa inay ka go'een marka dhalinyaradu dowrkaasay leeyihiin ee ayuha alikhwa tarbiyada ilmaha la tarbiyeeyo iyo yar iyo weynba waa wax weyn waayo culummadii hore salafkana iyo xataa umaradii madaxdii hore aad iyo aad bay uga fakeri jireen ilmaha waxay bari jireen thaqaafada iyo diinta akhlaaqda wanaagsan qur'aanka fiqhiga shicirka iyo gabayaalka xataa tababarka militariga la sii jiray toogta dabaasha waxyaalahaasoo jirka iyo mooralkaba dhisa ayaa maanta ma arkaysa la dhisi jiray bal nimanka madaxda ah waxay lahaa jireen sida hadda madaxda jirto ilmaha inta la dilciyo caloosha loo weyneeyo baabuuro qurxan loo dhiyo meelaha iska aan wax ay garanayaan la arkin iskoolka saaqidiin iyo jaamacadda ka aho waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo wasakh ay fulaan maan aan wax kala qoon maya ilmaha military camala laga dhigi jiray layliyaa la geli jiray ninka la dhihi jiray cabdimalik bin marwaan waa ninkii boqoradii muslimiintu ka mid ahaa adduunyadoo dhan ba haystay intii dhowr iyo 10 sano ah waxaa jiri jira markaas nima la yidhahdo mu'adabiintaas waxay yaqaaneen qur'aanka yaqaaneen fiqiga yaqaaneen xadiidka yaqaaneen waxay yaqaaneen tababarka militariga furuusiyada fardaha sida loogu dagaalamo tababarka yaqaaneen khudbada sida fagaaraha looga hadlay yaqaaneen shicirka yaqaaneen waa nin asaga dhanba carbisan oo balaayo ah waay raggaasaa ilmaha loo dhiibaa 100 jaamacad waa jaamacad thaqaafo iyo military iyo fiqhi iyo wax walbo isku jira waay adab iyo science wax walbo isku jira waay bal ninkaasoo ula dardaarmaa arag wuxuu dhihi jiray callimhum sidqa kamaa tucallimu alqur'aan runta bar cunug haddii uu barku yaryaha been barto eberkiis waaye waxmilhum cala alakhlaaqi aljamiila akhlaaqda wanaagsan ku xambaar oo ku qasab oo maanta ma arkaysaa jirsii warawihim ishicra yanjudu wayanjudu shicirkana ha wariyeen sababtoo shicirka waxaa laga helaa geesinimo iyo dee sida cantar oo kale wuxuu ku leeyahay yaa walaqad shafaa nafsii waadhaba saqmuha qiilu lfawaarisa weyka cantar aqdimi aniga dhamma waxaan caafimaaday markii seefti iyo fallaarti isku dhacdo meeshii raggi ay geli waayeen ayaa la yidhaha cantarow haye ciidanka horkac markaasaa ba caafimaaday waa meeshuu baqilaha somaa dee qofkii markuu ashcaartaasoo kale geesinimada uu maaragtay caadi u noqoto hadhow shujaacu noqonaya jihaadkuu shujaac ku noqonaya wuxuu dhahay mido kale deeqsiyaalay noqonaya soo maaha sababtoo ah ninka shaacirka waxyaala uu ku faano waxaa ugu weyn deeqsinimo iyo geesinimo waxa lagu faano waxa ugu weyn marka haddii marka caado uu shacirkaas iyo gabagaas uu caadi u noqoto nin wuxuu noqonayaa geesi oo deeqsi uu noqonayaa wajaalis bihim ashraaf arijaali ragga shurafada ah oo qiimaha badan oo caqliga leh la fariiso oo hala fariisan waa ahlal cilmi minhu dadka cilmiga iyo akhlaaqda iyo xigmada leh dadkaa la fariiso uu leeyahay wajanibhum asafalata waalkhadam dadka liita iyo kuwa maanta ma arkaysaa khaadimiinta kuwaasoo kale ka ilaali inay la fadhiisaan ciyaala suuqa fa innahum aswa'u nnaasi adaban waa dadka ugu edab xun oo ugu been badan waaye dadka wanaagsan oo akhlaaqda fiican la fariisi waxaa dhacday qaar xukamadii ka mid ah waxay yidhaahdeen ilmaha marka la tarbiyeynayo ama dee qof weynba waa kaas waa in dugsiga aada geynayso iyo madrasada waa inay ilmo wanaagsan oo edeble ay joogaan limaada waxay dhaheen liannahu ilmaha yarkaahi cunuga yarkaa unba wax ka qaadanaya asagoo ku ta'afuraya asagoo weheshanaya
intuu adiga kaa qaato ilmaha intuu ka qaataa weyn waxaan u malaynaa inaad maqasheen qiso uu maxamed rashaad uu ka sheekayn jiray raximahullah qofkii cadaladiisa dhegaystay qoys talyaaniga waxay joogeen Soomaali wiil yaray lahaayeen qisada sida sheekhu soo u sheegay wiilku ilmahu la ciyaara ilmihii markuu la ciyaaro dee waa Kirishtaan waa isma gudaa markay arkeen wiilkii oo buuryaqabkii ku caaya wiilkii asagoo ooyaa aabay hooyo imid ilaa hal ay gudow dhahay dee Kirishtaan is gudaa xagee laga arkay ilaa qasab ilaa hadii kale wuxuu dhahay gurigan ka tagaa waa ku qasab waa la guday markii la guday markii dambe la ciyaar maagay guriga ay waa ku xiran waxay yiraahdeen haram baa tahay haram waa qofka eyga maarta qofka taabta ee hana taabanin maxay tahay ay baad soo taabato guriga ku yaad cunugii waa la takooray soo ma aragtid markii la takooray aabiyo isku oysi wuxuu yiri eyga waa in guriga laga wado dhahay hadda niman gaalaha ay wata eyga farandigaaga waa kan waa eyga wax fiican waa ilmooday ka jecel yihiin waxay ku qasabtay cunuga ayagoo raqbadiisa ilaalinay eygii in guriga laga bixiyo cunugaas isagoo Talyaani maxaa ta'athiriyay ilmihii baa ta'athira aabiyo hooyadii ku xoog badnaadeen annaga lafteena de ilmihii ay la joogaan haddii aan si kale loo dadaalin yaa ilmahaas ayay maanta ta'athir bay ku leeyihiin haddii waxaasoo dhan aan moogaano maanta ma arkaysaa dhibaato ayay maanta ma arkaysaa ay maaragtay noqon doontaa waagii hore dadku waxyaalaha ugu muhiimsan meeshan anagu xoolo aan ka fakarno iyo jago iyo qabaa'il iyo waxaas aan ku mashquulsanahay ayaga waxaa ugu darnaa ilmahooda inay tarbiyaystaan wax ay ku najaxaan waxay ugu jeclaayeen inay jaanis u helaan ilmahooda inay tarbiyaystaan tarbiyad diini iyo akhlaaqi haddii ay wax ka dhumaanna wax ka dhuma waxay ilmaha inay tarbiyaystaan waxaa dhacay markii khulafaa ur-raashidiin cahdigii cali la dilay oo xasan bin cali radiyallahu canhu oo maanta ma arkaysaa mubaayaco uga tanaasulay reer bani umayyaa haystay mucaawiyaa soo haystay wiilkiis yaziido u dardaarmay kabacdi yaziid markuu dhintay reer marwaanay u soo wareegtay reer marwaan ayagaa iska dhaxlay cali bin abdulmalik haystay wiilkiisa waliid bin cabdulmalik qabsaday sulaymaan bin cabdulmalik qabsaday عمر بن عبد العزيز أو أذير وياه أسقوا كمجرين سلكجا لكن سليمان بن عبد الملك وآد جعلها سوق لي كبعد يزيد عبد الملك هشام بن عبد الملك كبعد ويلشي أوجها أيجي إسخلاف الدجالات الأحمري دجالة دي نمك عباسيين تكفى إيديستي فوري كوكو عياد نين أبو مسلم الخراساني اللي يرادو نين كاسا عيد ما بدن أنتم صاقري ودولة دي بن أمية كتخلص عباسينتي مركي قبصدين هذا وا انقلاب رجي هورو دولده هيسن جري وحلا دل وحبس لو غرا لغا دغ مركي هورو waxa haystay nin la yiraahdo Abu Abbas Tafax wax yar oo haystay 4 sano Abu Ja'far al-Mansur nin la yiraahdo oo bahal dhiig yacaba 20 sano iyo wax ka badan haystay ayaa qabsaday xabsi uu ka buuxiyay markii dambe wuxuu ogaanayaa bal nimankan waxyaalaha ay ka murgaayaan waxa ugu weyn xabsiga ayagoo ku jira ayuu dad u dira hay wuxuu reeban umayo ninka meeshan xabsiga ka buuxee bal waxa aad khasaarteen oo idin dhaafay inta xabsiga ku jirteen maxaa ugu badan ma lihi boqortooyadii naga dhuntay xoolihii naga dhumay waa dhibtoonay midna ma dhihin haweenkeennii ka dhalweyna ma dhihin waxay dhan waxa noogu daran ilmaheeni tarbiyadoodii baa naga dhuntay ilaa halkaan ku jirnaa ilmaheeni kama warqabno qof Soomaali saas ma dhahaya xoolihi ay dhaafay hantidii ay dhaafay jagadii ay dhaaftay kana ay dhaaftaa la leeyahay ayaguna wax xaasoo dhan waxay ka fadleen ilmaha tarbiyadoodii oo ka dhuntay ay maanta ay ka waxaysan sidaa darteed kulay waqtiga hadda waa u dhow yahay nuqaadka soo socdaan isu dardaarmeena والدك يدلن يرضى إلا وحان دلن يرضى ومسؤولين والدكنا ومسؤول أبونا ومسؤول
cunugu 7 iyo 8 hadduu soo gaaro 10 sano gaaro caqli yeesho ilaahay hadduu la damco ummadan buu hanuuni karaa ninka raahibka ku ta'athuray ee ilaahay hanuuniyey ee qisadii xadiidka dheer oo nabigu ku sheegay ee ninka boqorka oo dili waayey ee markii dambe yidhaa haddaa saas tiraahdo bismillaahi rabbil qulaam waa dili kartaa ee dadkii dhammaa islaameen naftiisii wuxuu u hooday inay diinta ay faafto cunug yarowna ahaa qulaam yaroo diinta la baro ahaa marka annaga tiin age nahay iyo waxaas ma naqaano annaga Soomaali waxaa naqaanaa 12 markuu jiro wiil hadduu lali ahaa waayo macna qof soo baax hadduu noqon waayo oo martida soo waayo raganimo kuma jirtay dhigi jireen qofku 12 hadduu soo gaaro cidda isaga mas'uulka ah hidaayadeeda ilmaha tarbiyadooda waalidka inuu gacan yaro u noqdo bal waxaa dhici karta waalidiin fara badan oo diinta aqoonin ilmahooda intay masaajida iyo khayrka culimada ka barteen in waalidkii iyo hooyadii ay khayr ay ula noqdaan marka awala mas'uuliyada inaan dareeno midda kale labaadna waaqicaan iyo bay'ada aan ku noolnahay inaan maaragtay aan aqoonsano ma inaan qabyaalad iyo maaragtay fadhi ku dirir iyo wixii dhulkii naga soo raray aan ku mashquulno meeshan aan joogno iyo khuduurada aan ku noolnahay waa inaan ogaano ilmahana waa in la daba socdaa tadawuraadkooda iyo waxyaalaha ay ku sheekaysanayaan waa in maanta ma arkaysa lala socdo ilmahana waa in calaaqa fiican lala yeesho soo maaha kolley hadda waagii hore oon dhihi jirnay 5 ku dhufo meeshan lama joogo 5 ku dhufo ma soconayso waa inaad la saaxiibto waa inaad caqli celisid waa inaad maaragtay waxyaalaha shubahaadka inaad farandi isaga dhigtid oo saaxiib aad isaga dhigtid waayo ma garatay tan kalena waxaa la rabaa ilmuhu qoysi ku korayaan aabbiyo hooyo aabbaha iyo hooyada hadday rabaa ilmuhu inay hagaagaan ayuu horta calaaqadooda ha wanaajiyeen kala dambayn ha yeesheen iisan bay'adan ku ta'athurin oo islaamuhu ay bac odaga u soo tuurayaan oo ka tumarudayaan may waalidkana ha noqdo mas'uul hooyana ka dambayso hana isla tashadeen lacalla haddii ay dhacdo inay arrin ka niqaashayaan oo ma garatay ay istafaahumaan oo khilaafka ama niqaashka oo adkaadana meel gooniha ku niqaasheen ayagoo isu soo tafaahumay ilmihii marka ha u yimaadeen midda kalena waalidka iyo ilmaha waaweyn ilmaha tusaale fiican waa inay u noqdaan carabtaa waxay tiraahdaa kullu fataatin mucjabatun biabiiha inan walba mase inan walba aabbihiisaa heer sare la-ah qof walba aabbihiisaa la sarreeya haddii marka wixii uu kaa arko ma wax fiican u qaadanayaa marka in wax fiican iyo wanaag maanta ma arkaysaa la tuso taasaa marka loo baahan yahay waa inaan hadda bilaadani waa adag tahay dad intaasoo maaragtay ilmaha daba socdo oo social iyo balaayo ay leeyihiin soo maaha ilmihii marka haddaad cunfi aad ku bilowdo dadkaanaa kuu naxariisada usliaasoo iyaga u soo cararaya waana subag sun lagugu daray waayo marka adigii xoogaa liintus marmarna xoogaa waxaad tirahdaa waxaan ma fiicno maaragtay xoogaa maaragtay si oo xoogaa macno ku jira uga adag una sheeg markaad xoogaa si adag ula hadasho waaba waxaan dhan limaslaxatik waa mustaqbalka iyo fiijarka iyo aakhiradaada wax maslaxa ku ah waayo adiga haddii taada lagu raaco waxa weeye meel xunay ku geynaysaa marka annaga waxaan kuu tarbiyeynayna waxa weeye adigii inaad kortid oo maanta ma arkaysa aad meel aad gaartid taas oo kale waayo nacam على كل حال مسؤولية خطرت إذا إنا فهمنه حدي ماشي أباه مسؤولية سؤال ضيعه وحواي أولادي يواضيع ما يصير هذه لذا يقولون كانوا ويفافايا هو يضع هدي دعنا بيتك يهاسو كدنيا كلمه وين عرضيالك هدي ضيعانا
ilmihii ayaga kharaabkay ku raacayaan marka annaga inaan tusaale fiican aan noqono ilaahay ha nagu anfaco sallallahu alayhi wa sallam